Mas'uuliyiinta degmada Og Cuqaasha waxgaradka haweenka ku dhaqan degmada Og ee gobolka Saraar ayaa xukuumadda Somaliland ku taageeray adkeynta nabadgelyada waxayna ay si weyn uga soo horjeesteen mudaaharaadyada ay ku baaqayaan xisbiyada mucaaradka Somaliland. Sidoo kale bulshada ku dhaqan degmada Og ayaa shacabka Somaliland ugu baaqay ilaalinta nabadgelyada. xisbiyada mucaaradka ahi in badan bay soo halgamayeen oo soo socdeen laakiin hadda waxaad moodaa urradii cusbaa ee la furay inay basbaas ku noqdeen aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa muhiimaddan waxa weeye nabadgelyada adkayno oo aynu nabadgelyada adkayno waan ku taageerayaa dawladdu inay nabadgelyada adkayso madaxweynaha iyo dawladdan hadda 5 sano ba madaxweynaha la doortay 5 sano ma dhamaanin intaana waxa weeye waxa ku soconaya dagaal waxaanu ka hadlaynaa waxaadani ku jirtaa dunida abaara ka jira abaara xun baa ka jira sixiirar baa jira waxaanu leenahay arinta nabadgeliyo ha lagu hogaamiyo baanu leenahay waxaanu leenahay aad iyo aad wixii dhintayna Ilaahay u naxariiso waxaynaga go'aan ma ahayn waxaynu qalanno ma ahayn wax aynu ina ageeyo ma ahayn wax kastaba waxaynu ku heshiin jiray in golaha iyo gogasha lagu soo fadhiisto madaxweynuhuna gogol buu dhigay gogashiina way taal weli saadaradeed mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa in nabadda la ilaaliyo axsaabta qaranka taaba ninkii doonaya kursi wuu gaari doonaa haddii Ilaahay wadmo laakiin waxa cid kastaba ku filan nabadgelyada ugu filan nabadgelyada ku noolaan karaa naxariis Ilaahay inoo shabeeyno ku noolaan karaa waxaan leeyahay hal dhigo wixii kaleba nabadgelyada laga taliyo nabadgelyada oo nabadgelyada nabadgelyo waxba cidna kuma qabtay inaga wax ku qabna nabadgelyada waxaan jecelahay in la ilaaliyo rag iyo dumar la ilaaliyo maxay tahay habar walba iyo oday walibana maxay tahay ilaaliyaan caruurtooda da'yarta ee faayahooda ay ku soo dhinteen maxay tahay iskuulo soo dhigeen jaamacado soo dhigeen wax kasta soo dhigeen inay ilaashadaan ayaa fiican nabadgelyada ha la ilaaliyo madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka labadaba waxaan leeyahay ha la ilaaliyo nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa geed harweyn oo la harsado nabadgelyadu waa ceel macaan oo laga cabo nabadgelyadu waa harub caanaha oo la cabo nabadgelyada ha la ilaaliyo anigu saasaan leeyahay midda kale waxaan soo dhaweynayaa xoghayaha cusub ee degmada Kaysi Cabdilaahi Ismaaciil aad iyo aad baan soo dhaweynayaa soo dhawow waxaan ka hadlayaa nabadda maanta joogta Somaliland dhexdeeda isma lahayn qof weyn oo caqli ku jiro oo maskaxi ku jirto ayaa Somaliland gudaheeda qalaanqal iyo dhib ka sameyn doona wixii ay soo martay xurriyadeeda u soo martay wixii inan qoor dheer kaga dhintay wixii waayeel kaga dhamaaday isma lahayn way ku kacayaan oo waxa weeyaan dib iyo maxaan ku dhahay qalaasay galayaan balse waxaan leeyahay Somaliland maanta indho wanaagsan bay lahayd marin fiicanna waa raacaysay meel wacanna way socotay yaynaan ka hor imanin oo aynaan iskumaynin oo aynaan isbaabiinin oo aynaan qaranimadeena duminin oo aynaan dadkeena ku ciyaarin dhalinyaradeena wax baratay qodobkayga labaad waxa weeye waxaan arkay nimanka xisbiyada mucaaradka nin naagtiisii carruurta halkan jooga ma jiraan waa anigoo midhan nin walba carruurta soo dhigtay dibadda hal si kale u yaalin labada mucaarad ban marka xirxiran ee dawladda iyo dadka laynaya halkaas ay soo dhigteen horta aynu doonayno in carruuraha layno horta Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Keen carruurtoodii dadka carruurtoodii dibadda soo dhigtay ninka carruurtiisa iyo maatadiisa dibadda soo dhigtay carruurtaada soo saaran laaye war been ka yaalaa inay ka yaalaa maaha kuwa carruurooda ceshan waayana dawladda waxaan ka codsanayaa nin kastoo caynkaasa inay talaabo degdeg qaado maxamed Abiib oo xildhibaan xalayta wuxuu caayay aflagadiinay wadaadada dalkeena u dhashay sida Mustafa Macalin Haarun Sheekh Dirir ligaleeyado Barbaraawi iyo qaar badan oo ka hadlay fidmada Ilaahay Quraankiisa ku sheegay wixii Ilaahay Quraankiisa ku sheegay baad diidi kartaa waxa weeyaan ninka caynkaas xildhibaanka sheeganaya wadaadada been bay sheegayaan
ee ummadda kicinaya waxa weeye wuxuu dabagalay qodobkii uu madaxweynuhu ka hadlay xasaaniyad ma laha qofku hadduu wadaado wallaahi ma lihid aad iyo aad waxaan ku sii mahadnaqayaa ciidamada qaranka afarta ciidan ee qaranka aad iyo aad baan u hambaliyaynayaa sida amarka loo siiyay u qaateen iyo sidii loo doortay iyo sidii ciidamay u noqdeen iyo sidii qarannimo walmasar walnafsar baa laga doonaya iyaga Soomaaliland baa laga doonaya walmarsar walnafsi بايا والمصدر والنفس بعيد ماذا لقد دونا يا أفرت عيدا إني كم ذوبان نبت قليدا يدقنا شطلك waxaanu yar noqonaya xisbiyada mucaaradka walaalihiin weeye waxaanu leenahay mustaqbalkii baa tiin soo socday waxa laga yaabaa ilaahay inuu deeyo xukuumadda dadkeedu ku dhiibo aad madaxda deeno noqotaan waxaan leenahay walaalayaal dhulka dhiga oo nabadgelyada ilaaliya oo gogasha fadhiista anigu waxaan u joogaa dowladda dhexe xogayaha degmada og baa la soo magacaabay waxaana ku shaqeynayaa xukuumadda dariiqay ku shaqeyso waxaana ku booranayaa waxaana anigu dadka reer og ee ku nool qaaradana ku noolahay waa soo ka mid si cadaalad lagu shaqeynayaa oo simeeyeen reerna uma iman qabiil uma iman qof uma iman أنا وحنا مجتمع ريرو إن أنا كشغي أو تجان كذا حقبته وحنا كوسو كوريو وحنا شعار جد كوين اللي بتجيله لقى شغيو تجان كروح اللقمة ما يلقى شغيو يا هرمرنا إذ كستود تجان كلول أوكسيد حقق قام لهذا هرمرنا هيد إن كوتا شتو تجان كانوا كلول هنا هرو بس كهو شان قادر هيد إنه قف ولا كل ولا كنت أشرب قفكي أوج حمان كذا وأنا كسر قبلنا نقص كمله أما كسر غني أوج هنا يسوي حماسه يعني نسكمت كنا قلنا كوا شغلنا وحكومة دائما كل شغلنا وهي دائما وجود تاني نفعله هل كان حفلة ضدك أنت اللي يسوي يمي وحوالي وحلقوا قبتي دقمة أوج وحلقوا قبتي وحوناكسن haddaanu reer oognahay waxaanu taageersanahay in sharciga la isla soo noqdo hal maadana waanu ka deeynaa waxayna haystaa abaaro sixir barar waqti adag baa lagu jiraa dib unuguma cusbe ee waynu soo marnay maalintii dhawoodintii inaga dhimatay inoo soo noolaan mayso xaalad kasta oo mudaharaadna haddii 9 goor la yiraahdo mudaharaad salmiya qabta oo aan cidi wax ku yeelin ma suurta galayso waayo ciyaal yar yar oo aan waxba kala ogeyn oo aan waligood mudaharaad arag oo dhibi meel ay taala arag ayaa gaarigii soo agmara iyo qofkii soo agmaraba dhagax ku tuurayo dibadna halkaas afidmadu ka dhalanaysa macal booliska ku tuurayaan dhibku halkaas ka dhalanaya de ilmihiina qof weyn baa markii dambe ka dambeeya marka waxaanu ka codsanaynaa xisaabta mucaaradka in mudaharaadkaasi wuxuu inagu yahay tacadi rajada wacan ee muuqata ee dalkeeni magaranaysa de aqoonsigii oo aynu qarka u saaranahay de beesha caalamku way de kullay markaa la gelinayso buuqaasi de sida aanu anaku wax u aragna hadaa wax noola aragtaan buuqaas waa in la joojiyo iyo mudaharaadyada iyo dhibaatada Qadar Cabdiraxmaan Qadar Hilaac TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Oog ee gobolka Saraar